gacantaana nabad iyo difaaca qarankaynu ku haynaynaa gacanta kalena waynu ku codaynayna qarannimada Soomaaliland hadday wiiqanto oo aad maanta wiiqdo oo codkaaga ku wiiqdo waxaad wiiqday sharaftaada iyo karaamadaada baad wiiqday suldaanku wuxuu ilaabay ambalaaskii marka wasiirka arrimaha ahaa ee duulista aanu wasaaradda caafimaadka ka soo wada qaadnay ee aanu degmada keennay halkan soo joojiyay ee imika shaqeeyo uu ilaabay codka waanu bixinaynaa waxaanu siinaynaa xisbiga talada haya Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi waxa weeye udub dhaxaadkii dalka Soomaaliland waxaa jira wax idin mideeya oo idinka dhaxeeya oo inaad ka talowda aanay ahayn haddaad nacab tahay madaxweyne Muuse haddaad xil ka weyday haddaad xoolo ka weyday haddaad wax kala kula kulantay waxaa jira wax idinka wada dhaxeeya oo ay tahay inaad ilaaliso oo ay tahay inaad codka u siiso isaga oo aad ilowdo waxa isaga idinka dhaxeeya maxay tahay waxa weeye qarannimada Soomaaliland hadday wiiqanto oo aad maanta wiiqdo oo codkaaga ku wiiqdo waxaad wiiqday sharaftaada iyo karaamadaada baad wiiqday inagu nabadii Soomaaliland ku sultanay nabadii Soomaaliland ku sultanay waxa lagu qoraynoo haya oo waxa laynoo hayo waxa leeyahay ninku inuu doorayna waa inay la degaan inta nooga naayima dawladda madaxweynaha waa iyaga codkana cidaan u dhiibaynaa walaalayaal nolole naga guddoon waa iyaga waxaanu leenahay Cali Maxamed oo naga guddoon codka insha Allah taala waxaan bulshada dhamaanteedna leeyahay waxalfadeena qiimaha iyo qaayaha badan leh ee isku timi maanta ee daabiyadaha hoos yimaada sabawanaag aynu ka koobanay iyo degmada sabawanaagba aynu siino oo aynu rumayno codkeena xisbiga kulmiye ururka garabka haweenka balli kaliil ayaan ka tirsanahay waxaan idin leeyahay annagoo aad iyo aad idin salaamayno idin soo dhaweynayna waan idin siinaynaa codkayaga aad iyo aad baan idin siinaynaa aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa marka xigta kulmiye Muuse Biixi waxa weeye udub dhaxaadkii dalka Soomaaliland waa mujaahidkeeni nabadgelyo in badan ku waarnaynu ku dhisanahay aynu ku qotanaa aynu ku joognaa inaan iyasna ma ahayn hoos u dhignayn cagta hoosteeda gelina ma aha waa inaynu soo saarnaa mid waliba waa nin reer Sheekh Saxaaqa mid waliba waa inaan keeni kii helaana waa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay nabadgelyo baynu weydiisanaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo gudoomiyaha kulmiye magaalada Kaamgaas waxaanu halkan u nimi aanu xafladan u nimi inaanu codkayaga siino halku nugu yeeray Cali Maxamed Waran Cadde Cali Maxamed oo codka naga guddoon codkii gaas naga guddoon kii saxaqna guddoon kii degmada Sabawanaag oo dhan waxaanu leenahay halkay madaxdiinu maraan mijo way ku qasban yihiin codka waanu bixinaynaa waxaanu siinaynaa xisbiga talada haya Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay reer Sabawanaag waxa inagu waajibay inaynu soo dhaweyno wafdiga qiimaha leh ee odayaasheenii iyo siyaasiyiinteennii iyo madaxdeennii iyo intii aynu horeba wax ugu dirannay inaynu soo wada dhaweynaa waa inagu waajib waa idinla hadli doonaan waa idin khudbadayn doonaan waa garanaysaa waxa loo socdo baarakallahu fiikum wixii 88 ilaa 84 wixii na soo gaaray qofku ka qarsoon yahay ma jiro xasuuqii rajiimkii afweynay noo geystay dadkeennii 50,000 iyo waxa ka badan lagu gumaaday ninka og waxayna soo gaadhay iyo qaxa aanu carruurteennii afka ku qaadannay ninkii u soo dagaalamay ee u soo jihaaday ee u soo dhaawacmay ee dalkan xoreyntiisa ka soo qayb galay ma ninkaasaynu oo maanta soo taagabaynu dooranaa kowdhaha
mise ninka maanta Soomaaliya leh wada hadal ayaanu doonaynaa inaanu la furno mujaahidkaynu dooranayna maalinteennii labaad aynu u lahayn haddaynu xisbiga kulmiyanahay ololaha shacabkeena reer Samawanaag waxaan leeyahay maanta waxaynu halkan u taagannahay sidii aynu ugu codayn lahayn xisbiga kulmiye aynu ku soo saar lahayn madaxweynaha geesiga Afrika ee magacii Soomaaliland cirka geeyay maanta Soomaaliland adduunka oo dhami ay hadal hayaan iyadoo cidi aanay ina aqoonin intii aanu geesigaasi aanu hoggaankeenu qaban maanta waxa si uu u soo aftaro oo uu maartay himilooyinka aynu ku talaabsanayno haday tahay xaq ictiraaf iyo haday tahay horumar kala dhiman oo maanta uu dhameystirayo insha Allah bidilaahi kariim waa in aynu maanta aynu mar labaad ugu celinaa waxaan idinka mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee geesinimada ee tullimada ee xigaalnimada ee noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa rag iyo dumar iyo dhalinyaro odayaalba aad baan idinku mahadnaqaynaa inta ka bacdi doorkan ballan fiican baanu kala qaadanay ballankaasi waxa weeye in xisbiga kulmiye ee Muuse Biixi Cabdi loo codeeyo war soo ballanka ma aynu gelin soo shirdood kuma aynu qaadanin kaasi waa kaasoo ballankaasi waa inoo xidhan yihiin ballankeena waxa sheegi doona sanadooda insha Allah qodobna waxa weeye xildhibaan shalay halkan ka hadlayo aanu saaxiib nahay oo aanu isku sidkanayno aanu ilmaadeernahay oo hadalkiisii laba kalmood baan ka xusaya wuxuu yidhi maalin bay idin iman doonaan maalin damba maarki doontaan علي محمد ورن عدي يا فرحان آذن هيبي وتولى لوجو مهدنا قيو وجيلي يا أنا جو جيلي قال كان داقي ومالي والبلتشوجا مالين بيد أركي تونتان وهذا الملك دعوة قذف لكن أنا واحد دي شيء استجاه رجيسنا حتى على جماله بلو أني كرر سبوناجا إيه رجيسي ماذا إيه الدبان كاركيش يا جاي مالين بانرك تذكرنا تورتي waxaan idin sheegayaa annaga saboonaag waana laga helaaye isaga xataa hargeysa lagama helo isagana intaasaan odhan doonaa maanta ballan baynu gallay waxaan filayaa ballankaasi inuu inoo guntan yahay oo aynu kulmiyannay oo aynu kulmiyo taageerayno oo aan qabyaalad dambayna xoqayn oo wixii maalintii hore laynugu shubaayey maanta guntoodii waynu gaadhnay waxaan filayaa maanta idaacad aan Soomaaliland sheegin ma jirto oo ka waraysa heshiiskiina yaraa Ethiopia idaacad aan af Soomaali China ku hadashaday doonte idaacad hadlayso Soomaaliland sheegin ma jirto dhowr iyo 30 sanadood baan Soomaaliland ahay maanta inuu ugu dhowna ictiraafkii warqabyo ninkeeda dhameeyay madaxweynaha maanta Muuse Biixi Cabdi soo mar labaad ma dooranno haddii aynu kuwii maqasha lagala quustay aynu cumaamada u soo dhiibano cuqaasheenii magta qaadi jirtay ay yidhaahaan siyaasad ka hadlaan dee waynu rogmanaynaa haddii caqli yarowga iyo cilmi yarowga iyo taariikh yarowgu ina horgalo socon mayno waxaynu u baahannahay cilmi badane taariikh yaqaan raganimo intoomineeda ku jirtaa baynu garanaynaa waxaynu nahay iyo halkaynu ka soo jeednay iyo taariikhdii aynu soo jirnay iyo awowyaasheen waddooyinka inoo jeexeen inaynu ka ambanno maaha taariikh baynu leenahay taariikhdaynu maanta mid xisbi ku bilaabaysa maaha mid reernimo aynaan ahayn aynu ku noqonaynana maaha wixii aynu ahayn waynu nahay laakiin waxaynu nahay deegaan baynu nahay deegaanna waynu ka soo jeednaa kaa aynu ku abtirsannaa baynu nahay hargeysaynu nahay cidda aynala degan baynu wax la leenahay aynu wax la qabsanaynaa oo aynu la qolannahay kuwaasaynu wada qolannahay dardaarankaan idin siinayaa waxa weeye gacantaana nabadda iyo difaaca qarankaynu ku haynaynaa gacanta kalena waynu ku codaynaynaa gacantaana difaaca qaranka ayaynu ku haynaynaa iyo nabaddiisa gacanta kalena waynu ku codaynaynaa
cidna uga habran mayno saba wanaag cidna uga habran mayno ninna uma daba fadhino annagaa leh waa deegaankayagii ninka doonaya dadkayga inuu beenu sheegow in badan baanu indiga xishoonnay hadalladiinna waanu ka aamusnay mar dambe indiga aamusmayno sida wacanay noo soo dhowayseen runtii aad baan idinku bogaadinaynaa rag iyo dumar waayeel looma kala hadhin maanta intaas salaantaa ku dhaafaya hal waxaan doonayaa inaan ka idhaahdo qolada tidhi waxaanu nahay bari reer bari oo waanu isu soo bahaysannay qoladaa waxaan leeyahay haddii bari oo isu soo bahaysateen galbeed oo dhammina garbuhu isqabsaday hadalku waa biyo kama dhibcaane barbarkii ka baxdaa waa bakeela qaleen intaasaan ku dhaafayaa inna maanta waxaan sheegayaa kolay taariikhda de raggiiga waaweynaabaa fadhiyee waxaan doonayaa saba wanaag iyo maalintii la aasaasay inaan laba kelmadood ka idhaahdo kayntanaynu joogno saba wanaag maalintii xafladdeeda furitaanka ahayd anigu waxaan ka mid ahaa anigoo da'aya raggii joogay 9 bishii 12aad 12keedii bay ahayd raggii soo qaaday degmadana badankoodu waa mooteeyeen aabbahay ugu horreeyey allah u naxariisto labadaa nin ee cali waran cadde iyo maxamed faarax aynaash ayaa ka noolay maanta inala fadhiya mar labaadna waan sheeganayaa degmada iyo magaceeda oo magaceedana aabbahay baa maalintaa bixiyey saba wanaag kuwii qaadhaanka deegaanka loo soo ururiyey qurbajoogta qalbiga wanaagsan ee reer saba wanaag ay soo ururiyaan masaariifsan jiray inay maanta dadka yidhaahdaan annagaa halkan wax idinku haynay lugooyo la soo horkacaanna iyaduna waa masiibo kaloo deegaanka ku dhacday iska jira baan leeyahay reer saba wanaagow dhammaan madaxda halkan fadhidaan wada soconnay mudane cali maxamed waracadde suldaanka guud salaadiinta kale odayaasha acyaanta ah ee mudakarka ah xildhibaan juxa iyo bahda saba wanaag deegaanka saba wanaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mid waa guddoon in codka siisaan xisbiga kulmiye iyo musharaxa madaxweynaha imika muse biixi cabdisow sidaa maaha qodobka labaad waxa weeye deegaanka ilaahay barwaaqada aynu arkayna ee nimcadiisa uu inoo shubay nusqaanteeda haynaga hayo ilaahay taran wanaagsan oo xoolaha iyo awlaaddaba ahayna siiyo inta bugtana allaha caafimaad ha siiyo waxaan ku darayaa qolo waftiyo halkan maalin dhaweed maraysay horta suldaankii guud waa fadhiyaa waa suldaan maxamed xasan barre ayaa waxa nin suldaani wuxuu yidhi oonu weliba runtii aan ixtiraamo oo ehel la nahay ceeb iyo xumaanna halkan ka odhan maayo wuxuu yidhi miya ambalaas leediin sow umushu ma umulaaroorto suldaanku wuxuu ilaabay ambalaaskii markan wasiirka arrimaha ahaa ee duulista aanu wasaaradda caafimaadka ka soo wada qaadnay ee aanu degmada keennay halkan soo joojiyay ee imika shaqeeyo uu ilaabay horta waa ayaa darro weeye markaad doonaysaan ku kacsiga awrkaaga ninku maalintaasoo qura hadduu kuu yimaado suldaan buu ahaa wadda halkaa laga soo jiiday balligubadlo wadda kaloo sallaxdii halkaasaa laga soo jiiday wuxuu ahaa kii odhan lahaa waar deegaanka yaynaan qaybin inaha laysu yimaado waddadeenna ilaa iyo diinqal aynu saba wanaag u soo jiidno oonu dhisno halkaasuu ka soo dego wuxuu yidhi istaw qoluu la saftay qolona wuu ka tegey saxaaq kol haddii suldaanku salaadiinta ay noqonayaan siyaasiyiin horta albaabka siyaasiyiintu wuu furan yahay ma xidhna dhallinyarada ninkii doonaya maalintii doona wuu soo gelaya laakiin awalka salaadiintu wuu xidhnaa maanta koofiyadda waxaan u soo xidhnay albaabkii kol haddii salaadiinta siyaasiyiin noqdeen albaabka salaadiintuna wuu furan yahay
waxaan leeyahay nin kastoo suldaan doonaya albaabku waa u furaya maanta kol haddii salaadiinta siyaasiyiin noqdeen taasi waa taa ta labaad waxaan leeyahay qurbo joog oo niman wanaagsan rag iyo dumar oo halkan ka hadlayey oon ixtiraamo oo halkan ka hadlayey oo lahaa maxaa la idiin qabtay waxaan iyagana leeyahay wax badan baa loo qabtay deegaanko marka la xisaabiyo inta tuulay tahay iyo inta iskuulya ka furan iyo inta masaajid ka furan iyo inta dhaam loo sameeyey waa kaa sheegay 23 iskuul baa ka furan gudoomiyaha degmadu marka xisbiga waddan ay ku jiraan 4 wasiir oo arrimo gudaha soo maray madaxweynaha Ilmaadeer yihiin ay ku jiraan 2 wasiir oo arrimaha dibadda soo maray oo madaxweynaha Ilmaadeer yihiin oo ka mid yahay Axmed Jaabir Suldaan oo ka mid yahay Cabdullaahi Cirro oo ka mid yahay Ismaaciil Yare oo ka mid yahay Cabdullaahi Maxamed Cumar oo ka mid yahay raggaasi ma geelaan ilaahay ma la joogaan wadani markaa waar dalkayna qabyaaladu kala soocinay waxaynu sameeynaa mabaadii baa lagu kala safarayaa warni waliba mabdiisa halka uu arko har raaco taladuna waxa weeye kulmiye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bulshada reer Saba Wanaag ee sida qiimaha leh noo soo dhaweysay ee ilaa saaka halka noo taagnayd ee danahoodii iyo hawlahoodii soo baylihiyey iyagana waxaan leenahay si wanaagsan baa yeeshay ilaahay raalli idinka noqdo waxa kale runtii halkan aan ka salaamaya dhammaan salaadiinta madaxda halkan socota odayaasha dhaqanka hablaha quruxda badan haweenka iyo dhalinyarada iyo marti sharafta kale ee ka timid tuulooyinka kale ee nagu dhowdhow Saba Wanaag runtii aad waxaan ugu faraxsanahay beesha halkan degta ee aan ka soo jeedo inay maanta isa soo gaadheen madaxdoodii iyo mijahoodii oo fakarkooda markaan arkay iyo taladooda markaan arkay aan aad iyo aad ugu mafsuuday inay yihiin dad aan la khaldi karin dad aan calamada cascas calanka casi mushkilad buu leeyahy mushkiladdaas waxa weeye dunida waxaa jira bahalo la yidhaha bufaalo oo bahalo waaweyn oo dunida ka waaweyn baa jira bahalahaasu inta kale way miir qabaan laakiin marka calanka cas la hor qabto cir iyo dhul meel ay marayaan lama arko waxa weeye adeer dadka in la xaasida maaha bini aadanka in la khaldana maaha waxaan soconayn la hor qaadana maaha 24 iskuulba 24 waxaan ahaa raggii dhigay waxaan ahaa waxa waddanka ka jira raggii muxuu ahaa intaa joogay aniga iyo rag badan oo imika nool iyo rag badan oo dhintayba horta waxa weeye ninka uu idin maxaa la idin qabtay hadduu shalay dhashay waxba ha weydiinina hadduu anigayga weeyaan ma uu leegyahayna masaqiir baad ahayd xageed ku jirta adigu intii dalka wax loo qabanayay haddii qabyaalad laynoola kaco dadka dhiiggiisa ku jirta shalay baynu qabyaalad u coladeen sow maaha sow waajibkaa iskamaynaan ridin tolkeennii labaad ee bidix iyo midigta ay ahaayeen si aynu wax uga qabanno oo aynu kaana midigta ku qabanno kaana bidixda inaynu cadaalad samayno oo aynu ugu ridno gacanteennii labaad ma idinla tahay si aynu u haysanno muxuu ahaayey beelkeennii dahabka ahaa si aynu u haysanno beelkii nabadda si aynu u haysanno kalsoonida ummaddeenna labadeenna daraf waar ma idinla tahay maanta inaynu codkaa ku badbaadinno dalka bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ugu horrayn waxaan salaamayaa oon salaanta muslimka ku salaamayaa wufuuddan qiimaha lehe salaadiin iyo wasiiro iyo madax si kastaba ha ahaatee leh dhammaan mudane iyo marwooyin ummad xafladda inta joogta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ii raacaa waxaa maanta la isweydiinayaa wax weliba waxay leeyihiin halkudheg iyo go'aan iyo murti iyo gutin waxaa la isweydiinaya waa cod codka waxaanu siinaynaa haddii aanu nahay degmada Saba Wanaag maanta oo haddii binikaysadeeda u diyaara
iyo inta hoos timaada oo runa oo dhaba xusbiga kulmiye iyo madaxweynaha muuse bixi cabdi kollayto haddii makhaayada fadhiisataan oo shaah lagu soo dhigo nina inta dhiman buu ka eegaa nina inta wax jiraan buu ka eegaa annagu waxaanu ka egnay intuu taree baanu ka egnay inuu dhibay nooma muuqato waxaan leeyahay waxa intaa dheer marka hore waxaynu nahay deegaan gogol hargeysaynu nahay halkeeda lagu qiimeeyaba fiican war bal ninka halkaa qiimeyn waayey waxaa ka halowsan waynu isweydiin waxaa kale oo wuxuu ninka sagaalowsatadambabe shalayta waxaynu ambanay meel waaryaanta dambana inaga xumaanay ta dambana yaa inaga xumaanay waxaa ii raaca dadku haddaanu siyaasigiisa iyo madaxdiisa iyo inta aqoonu leh aanu dabagelin oo aanu ku dayan oo uu yidhaahdo kii geel raaci jiray oo soo qaadhis dee waxba ka garan maayo waxaanu aad iyo aada ugu kalsoon nahay oo ceelka salkiisa noogu jira cali maxamed oran cadde farxaan aadan haybe salaadiinta badan ee joogtay maxalaqameedka intaba waddadeedaanu haynaa waanu ku kalsoon nahay wax horena waa uga soo taagnayn oo taariikhiya maantana waa ku raacsan nahay sidaas waxaan soomaalidu waxay tahay hadal nin badiye ma wada odhan nin yareeyana ma wada dhaafmeelay kolli cid badana hadalka waa sugaysaa waxaan ku soo gaabinayaa wuxuu yidhi hashi awrkeeda dida awr kale ku roortay afartabadaloolu abaa seegtahay waroy meeshiina ha seegina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu